ابن بطوطة وهو aqoonyahan ahaana socdaale kii ugu weynaa ay taariikhdu xusto ku dhawaad kala badh cimrigiisii waxa uu ku baxshay socdaal aad u dheer sida ay taariikhyahanadu sheegeen ibn batuta magaciisu waxa uu ahaa maxamed bin cabdalla alawati abu cabdalla waxa uu dhashay 2 Febraayo 1304 waxa uu ku dhashay magaalada Tangier ee dhacda Morocco waxa uu ka dhashay qowmiyadda Berberiga ee degtay qaybo kamid ah dalka waqooyiga Afrika markii uu soo gaaray da'da 12 sano jirka ayuu go'aansaday inuu safro Makka si uu soo xajiyo safarkiisa xajka waxa ku qaadatay 16 bilood waxa uu go'aansaday inuu soo ku laaban Morocco uuna bilaabo socdaal dheer oo uu ku tagay dhul badan Morocco waxa uu ku maqnaa muddo dhan 24 sano waxa uu safar ku maray oo cagta mariyay waqooyiga Afrika bariga Afrika galbeedka Afrika bariga dhexe bartamaha Aasiya koonfurta Aasiya koonfur bari Aasiya Shiinaha iyo koonfurta Yurub waxayna ku qaadatay inuu ku tago dhulkaas muddo dhan 30 sano waa shakhsiga iskaga gudbay min cirifka galbeed ilaa Timbuktu oo Mali ah ilaa cirifka bari ee Shanghai oo Shiinaha ah sidoo kale waxa uu soo gudbay min cirifka waqooyiga jasiiradda Seychelles oo Talyaaniga ah ilaa cirifka koonfureed ee Indonesia taariikhyahanadu waxay xusaan inuu ahaa kii ugu weynaa taariikhda aadamaha ee la og yahay oo ku socdaal dhul intaas leeg waxa uu hormuud u yahay barayaashii ugu socdaalka dheeraa taariikhda aadamaha marka loo eego dunida casriga ah waxa uu safar ku maray masaafo dhan 117,000 kiiloomitir square waana shakhsiga jaray masaafada ugu dheer taariikhda ee socdaal waxayna dhan yihiin dalalka uu booqday 44 dal oo ay ka mid yihiin kuwa aad ku waaweyn waxa la sheegaa dhulka Soomaalidu degtay inuu Ibn Batuta socod ku soo maray safarka uu ku maray Ibn Batuta waxay ahayd magaalada Sayla goobtii ugu horeysay oo cagta soo dhigo isagoo maalmo kadibna safar badda ah uga gudbay dhanka bariga waxaana markaa cagta soo dhigay cirifka bari ugu sheegay qaaradda Afrika ee Gardafuul oo uu ku nastay waxa uu sii gudbay isagoo doon ku safraya dhanka badweynta Hindiya ugu dambeyntiina waxa uu soo aga dhigtay magaalada Muqdisho oo uu ku tilmaamay dhulkii berberinta maadaama ay aad ugu ekaayeen muuqaal ahaan xeebaha Muqdisho ayuu ka baxay isagoo u ruqaasaday dhankaas xeebaha Sawaaxiliga ilaa uu ka soo gaaray Mombasa oo uu sii gudbay Zanzibar ugu dambeyntiina safarkiisii qaaradda Afrika waxa uu ka gudbay dhankaas Dover oo dhacday Oman ilaa uu ka sii tagay oo uu sii baxay dhanka Aasiyada kale waxa laga joogaa in ka badan 662 sano waqtigii uu safriyay Ibn Batuta inta badan safarkiisa waxa uu isticmaalay geela iyo gaadiidka badda waxa jirta buugaag aad u badan oo laga qoray safarkiisa kuwaas oo laga soo guuriyay buugiisa uu kaga hadlayo safarka la yiraahdo Royal Journey goob walba uu tagay waxa uu ka warramay dhaqan iyo xadaaradii ka jirtay Ibn Batuta waxa uu ahaa sahamiye caan ah Ibn Batuta waxa uu ahaa sahamiye aad caan uga noqday dunida oo ilaa maanta ay daraasayaal culimada safarku kaasoo baaqi ku ah goobaha cilmiga ee dunida taariikhyahanadu waxay sheegeen inuu ku geeriyooday magaaladii uu ku dhashay Tangier sanadkii 1369 daawada xogta waxaan kaga hadlaynay Ibn Batuta ninkii ugu safarka badnaa qarniyadii la dhaafay dunida soo mara fiidiyowga la agsarsiina shargare والسلام عليكم.